wadaadada kuwa barbariiqda ee dantooda iyo xaqa dhinaca dantooda u xagliya waxay Soomaalidu ku tusaalaysaa sheekooyin badan oo maamaaha ka hareen labada soo socdaana ay ka mid yihiin. sheekada hore waxay ku saabsan tahay wadaadkii ninka buka oo muddada dheer dhulyaalka ahaa reeraha inta ku maqlay ku caraabay. intii aanu aqaladii iyo halkii uu ninku ku xanuunsanaa soo gaarin ayuu soo dhex maray arigii reeraha oo meel aan xiriyihiisi ka fogeyn mayracanaya. riyo iyo ido, orgi iyo wanan, sabeeno iyo ceesaamaba si wacan buu indhaha ula raacay. wuxuu cabbaar ku dheegagay una bogay wan idaha ku jiray oo joogaa ah galaalaana, bariduna intay ballaarkii ka badatay ay xaglaha ku dhowdahay. isaga oo aan is ogeyn ayuu candhuuf ay hamuuni ka keentay tugsiye kuna taamay neefkaas inuu caawa hilba ka cuno. reerkii markuu gaaray oo rag iyo dumar wixii joogay ay sinabdaadiyeen ayuu ka waraystay ninkii ka xanuunsanaa siduu ku dambeeyey. waxay u sheegeen inuu shalay iyo maantaba ka soo daraayay, waxayna ka codsadeen inuu u galo oo isagaa sheekhahe wixii lagula tacaali lahaa uu u sheego. isna wuu yeelay oo ninkii ayuu u galay. wax yar kadibna intuu ka soo baxay ayuu xigtadii sugaysay wuxuu ku yidhi, waxaa u daawo ah wan galaalan oo isla caawadan laga fuud siiyo iyo quraan intaas iyo intaas ah oo berri lagu bilaabo saa dambana lagu dhammeeyo. wadaadkii inta meel la fadhiisiyey oo caana loo keenay ayaa raggii nin ka mid ah arigii loo diray si wankii galaalaa ee wadaadku sheegay uu uga keeno. show wananka galaalan ee ariga ku jira miduun ma ahee waa badan yihiin. show kuwa waaweyn iyo kuwa aan baraar waxba dhaaminba waa leeyihiin. wan yar oo galaalan oo aan ahayn kii wadaadku madaxa ku hayay ayuu ninkii la dirayna la soo orday. waana gar oo inuu wan yahay iyo inuu galaalan yahay mooye da'diisa iyo shishlaantiisa midna isba carabka kuma dhufan. wadaadkii oo halkii gugasha loo dhigay weli fadhiya ayaa wankii la horgeeyey si kii loo baahnaa inuu yahay looga hubiyo. isna wuu gartay garabta midkii uu ariga ku soo dhex arkay inuusan ahayn. talaa ku caddaatay tilmaamihii uu reerka u sheegay waa leeyahay oo wanku waa wankii, wankuse wankii ma aha. waxaa la yidhi wax kale oo uu yidhaahdo inta laga madoobeeyey ayaa waxaa afkiisa ka soo booday subxaana allah, bal intuu la eg yahoo galaalan yahay oo noqotay mahmaah la xusuusto markii la arko wax la filaayey oo inta baaqsaday wax aan la filayni ka soo soka mareen. sheekada labaadna waxay ku saabsan tahay wadaadkii nimanka dacwada isu haysta u garnaqay oo inta kitaabada u furfuray xukunka riday, isla goobtiina isla dacwadii inta ku noqday xukun kale ka soo saaray markuu ogaaday isaga qudhiisu dhinacii eedda qaaday inuu ka mid yahay. waxaa la yidhi nin baa beer tabcaday, dabadeedna masago fiican ayaa uga baxday. isaga oo aan weli goosan ayay inta soo gashay waxaana ka dhigtay lo aan lala joogin oo meel aan u dhoweyn ka soo fooftay. ninkii beerta laga cunay iyo kuwii lo'da lahaa ayaa dabadeed arrintii ku kala bixi waayey oo hadalkiina ka taagtaagmay. raggii halkaa joogay ayaa markaa labada dhinac kula taliyey inay shareecada iyo diinta eebbe ku kala baxaan. waxayna farta ugu fiiqeen wadaad geyiga wax ka deganaa oo halka wax ka dhaceen aan reerihiisu waxba qumban ka fogeyn. markii loo warramay dhinacyadii ishayeyna uu si wacan u dhagaystay ayuu nin meesha fadhiyey waran uu sitay inta ka qaatay dhulka ku joojiyey, xukunkiina ku dhawaaqay. wuxuu yidhi waxaan xukumay lo'da beerta cuntay nimankalihii warankaas jooggiisa oo masago ah inay siiyaan ninka beerta leh. hadalkii oo aan afkiisa ka dhammaan ayaa qoladii lo'da lahayd nin ka mid ahi wuxuu la soo booday, sheekhow hadda lo'da beerta cuntay taaduna waa ku jirtaayo ogow. markaas buu inta warankii laacay dhulka jiifiyey oo xukunkiisii hore inta mid kale ka dambaysiiyey intii dhegaysanaysay wuxuu maqashiiyey la jiifiyaana bannaan oo noqotay mahmaah markii garsoor xumo la dareemo xusuusta Soomaalida ku soo dhacda lagana hormariyo. wadaadkii wuxuu yidhi, dhegaystayaal, barnaamijkii fanka iyo suugaantu maantana halkaa ha inoo joogo. waanoo dhegaystayaal, tanina waa qaybtii 8aad taxanihii mahmaahda Soomaalida. welina waxaanu wadnaa tusaalayaashii aanu ka bixinaynay
mahmaahda sheekadii ay ku baxday lahayo ha yeeshee la iloobay ciddii curisay ama tiri marnaba waxaan muran la gelin karin koritaanka carruurtu inuu ugu wacan yahay marka aabba iyo hooyaba ay u wada joogaan oo jacaylkooda iyo daryeelkooda diyaarka ah ay ku hoos barbaaraan ilmaha labadooda isla helaa wuxuu ku koraa caafimaad ooga iyo mid maskaxeed oo markuu nolosha waayeelnimo dhex muuquurto wax weyn ugu filaada uuna u aayo waxay u badan tahay waalidkiisa oo dhagadhani canugii ay soo wada koriyeen inuu isku kalsooni iyo geesinimo la weynaado marka la barbar dhigo kii yaraan ku agoontoobay ama ku rajoobay ama ay labada guuldarraba isu raaceen iyada oo labadooduba ay sidaa laga maarmaan u yihiin ayaan haddana aabba iyo hooyo la isgarab dhigi karin gaar ahaan heerarka hore ee koritaanka inta uu ilmuhu maraayo markuu dhasho ilaa marka uu 10 jirsanayo heerarkaas iyaga ah hooyo lala mid maaha inta badan aabba waa maqan yahay oo xoolaha iyo hawlahooda ama sadcaal ganacsi ayuu qoyska uga fogaadaa qofka canuga ka warqaba ee cudur iyo caafimaad wixii uu ku sugan yahay la socotaayo waa hooyada iyada ayaa wax siisa iyada ayaa bal inuu baahi ku seexday markuu seexdo bogga iyo beerka ka taabata iyada ayaa hadal iyo hadaaqba barta socodkana ku tacliimisa iyada ayaa wixii u daran u sheegta wixii u roonna ku hanuunisa markuu ooyo iyo markuu farxaba waa halka uu ku soo ordo waa gaashaan adag oo tabaryaridu intay hayso bala oo idil uga gudban dulucdu waxay tahay haddii aanay kulley labadoodu u wada joogayn waxaa canuga u roon inuu agoontoobo intii uu rajoobi lahaa iyaga oo muluq ah oo dhabta iyo dhabarka lagu hayo carruurta inta rajowda ka noolaataa waa nasiib badan yihiin aabbahoodna allaha ka dhigay xanaanadii hooyo cid u haysa ma helaan wax halkeedii u geli karaana ma jiraan si ay haddaba ilmahaasi daryeel habboon u helaan waxay soomaalidii hore u soo rogtay dhaqanka xiskiisanka la yidhaahdo hooyadii carruurta rajada ah ka tagtay walaasheed ayaa aabbihii la siiyaa si ay gabbaad ugu noqoto carruurtaas ay habaryarta u tahay kuwa ay dhali doontana u walaal noqon doona taasina waa haddii ay carruurtaasi nasiib leedahay oo habaryartood loo guursado haweenaydii dhimatay gabar walaasheed ah oo lagu xiskiisamaa haddii aanay reer xididkii u joogin wuxuu aabbuhu carruurtaas rajowday u geyn jiray haweenka kale ee uu qabo middood haddii ay jiraan haddiise aysan jirin oo haweenaydii ka dhimatay uu xilo ka lahaa naag cusub oo ilmaha rajada ah la korisa ayuu u guursan jiray iyada oo kuwaas haysa ayay iyaduna kuwa kala dhashaa markaas baana kuwii rajada ahaa dhibaatadoodu bilaabataa sida Soomaalidu badi u rumaysan tahay ayada waxaa lagu xantaa ilmaha uu ninkeedu dumarka kale ka dhalo oo ay hayso inay gacan bidixayso ama aysan u roonaan ilmahaas iyaga ah hooyo dhimatay ha ka tagto ama haweenay la furay ha laga reebee waxay markay koraan u badan yihiin inay aayooyinkood ka sheegtaan siyaabihii ay ula dhaqmi jireenna ku eedeeyaan inkastoo aysan dhammaantood sidaa wada ahayn haddana waxaa aayooyinkaa lagu xantaa carruurta rajada ah ee ahayaan inay hawsha ku badiyaan oo ay iyaga wax walba u diraan inay dilaan oo inta odagu maqan yahay ay garaacaan odaygu markuu soo hoydo inay ku diraan oo gafaf aysan gelin u maleegaan caana iyo calalis waxa carruurta la siiyo inay ku yareeyaan haddii kuwaas iyo kuwa ay iyadu dhasha diriraanna way u garab goreeyaan oo kuwooda u hiiliyaan waxaa ka daran dagaal maskaxeedka kale ee carruurta rajada ahi ay aayooyinka haya qaarkood ka mutaan waxaa lagu eedeeyaa inay kuwaasna doqomo wada salleella ah inay yihiin dubaaqooda ku beeraan kuwa ay dhaleenna diricyo meelan oo geesinimo iyo caqli meel dhigtay ku tilmaamaan maxaa sidaas ugu wacan iyaduna waa su'aal meesha ku jirta oo culimada nafta jawaab uga baahan sida ay saxadirta canuga yar ee rajooba uu aayadii ka mudan karo waa aayo xun haddii ay tahay waxa inoo muujiyay hormuudka maansayahanada Soomaalida raaga ogaas oo gabayadiisii jacaylka ahaa midkood ku yiri sida inan yar oo hooyadeed aakhiruu hooyatay oo aabaheed aqal mid kale meel ilaa seexshay hadba waxaan la urugoonayaa urku taalada sheekooyinka gacan bidaxaynta aayooyinka ku saabsan waxaa ka mid ah
middan soo socota ee la wariyey inay dhex martay wiil yar oo rajay ah iyo aabbihii waxaa la yidhi inan yar oo gabannimo ku rajoobay ayaa aabbihii wuxuu u geeyey haweeney kale oo u dhaxlay meesha la joogaa waa miyi